Eygii daacadda ahaa waxa uu leeyahay qiso dhinacna xanuun iyo murugo badan, dhinaca kalena tilmaamaysa daacadnimada iyo wanaagga xadka dhaafsiisan. Eygani asagoo yar ayuu soo qaatay nin Jabaaneys ah. Kadib wuxuu keenay gurigiisa, xanaaneyn iyo korin dheer kadib. Maalin walba markuu shaqada tagayo ayuu soo raaci jiray, kadibna wuxuu uga hari jiray waddada tareenka, ilaa iyo intuu soo noqonayo meesha ayuu ku sugi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, sidii caadada ahayd, asigoo soo raacay waddadii tareenka uga haray, ayaa ninkii shaqada asigoo joogay si kadis ah madaxa dhiig uga furmay. Isbitaal ayaa loola cararay, kadibna wuxuu ku geeriyooday isbitaalka. Eygii waddadii tareenka ayuu wuxuu ku sugayaa saaxiibkiisa, laakiin ma oga inuu geeriyooday. Wixii maalmaha socdaba, eygii waddadii kama uusan tegin. Maalin walba waxaa wax siin jiray dadka waddada marayo. Ugu dambeyntii, eygii wuxuu ku dhintay waddadii tareenka ahaa. Qisada eyga caan ayuu noqday, waxaana laga sameeyay buugaag iyo aflaan badan. Sidoo kale waxaa taalo looga dhisay halkii uu istaagi jiray oo markuu saaxiibkiisa sugayo. Sheekadani waxay tilmaamaysaa daacadnimada iyo wanaagga uu xayawaanku leeyahay, iyo in lala saaxiibo oo la ilaaliyo, taasoo xag adduun iyo xag aakhiraba faa'iido leh.